afkaygu amaanta ufududaay afkayguna amaanta gacalo ufududaay barnaamij kale oo aan ka falcelinayno waxyaabo baraha bulshada kusoo badanaya baryahan aniga mar walbo inaan hor imaado waxaan idin keenaa wax adigu aad og tahay balse aad taageertay see ku taageertay ma garan kartid qaabaa ku taageertay laakiin markhaati TV toosh weyn oo wataa uu ku ifina adiga ayaa waxaad dareemaysaa qaladkii aad shalay taageertay inuu qalad yahay waxaadna ka qoomamayne inaad mar kale taageertid waana sababta aan waqti u gelinayo inaan inta ku soo hor imaado walaalkeygiyo aan qaladkaaga kuu sheego adigana qaladkaaga qaadatid fahmaysaa waxaan ka hadlaynana wax kala maahan oo waxyaabo baryahan baraha bulshada gaar ahaan barta YouTube-ka ku soo batay barnaamijkaasna waa barnaamijka ay baranki dhahaan oo kadiska oo dadka looga nixinayo oo dhibaato fara badan saameyn fara badan ku yeeshay dad famila adduunku waxaa jirto waxyaabo aan laga kaftamin hadda barnaamijyadaas barankiga ama wixii lamid ah tartanka xujooyinka lamid ah marka ay sameynayaan kanaalada caalamiga tusaale waxaad daawataa dib u daawo barnaamijka la dhaho American Got Talent fiirso waxyaabaha ay soo bandhigayaan dadkaas wariyaha ama barnaamij soo saarayaashaas waxay kaaga digayaan in aad samayso xilliga aad gurigaaga joogto ama aad isku daydo ha isku dayin marnaba gurigaaga xilliga aad joogtid ayaa lagu raacinayaa sababtoo waxay dareemayaan khatarta ay leedahay iyagu ay sameeyaan qaab wax u sameynayaan mataqaana farsamaysan laakiin adiga oo daawaday waxaa macquul inay naftaada haligto waxaan rabaa inaan idin soo qaato way badan yihiin dadka sameeyay barankigan oo nuucyo badan oo khalad u sameeyay way badan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ka soo qaadano kuwa nolosheena saameynta ku yeelanaya kuwa annaka mataqaana dhibaato noo horseedi karo kuwa annaka nolosheena burburi karo kuwa annaka biri murugada nagu reebi karo waayo wax aan ka hadlayno anigu ma rabo shakhsiyan qof inaan marnaba aan si shakhsiya ama si nafsiyan aan u weeraro laakiin waxa aan ka hadlayaa ila faham waxaan kala hadlayaa ficilkan muxuu inaga waa aniga xataa waa ku jira adiga kaliya ma muxuu annaga saameyn ah nooga tagi karaa shayga la sameeyo waa labo midna waxaa ka soo laabto wax wanaagsan feedback wanaagsan oo hadhoodii aniga nolosheeda kor u qaadi kara adiga noloshaada kor u qaadi kara midna waxaa ka soo laabato ficiltaada burburi kara teedana burburi kara isaguna uu caadi u sameeyay uu iska yaal u sameeyay tusaale gabadhaha kamida youtuberleyda oo caan ah oo barnaamijyo hore u fiican samaysay oo weliba dadka qaar ay ka aflaxeen ayaa waxay samaysay barnaamij mataqaana nolosha qof bini'aadan halis geli kara waxay samaysay barnaamij aad u murug badan oo aniga daawanaya murugo igu beeray adiga daawanayana murugo kugu beerayo tani ilaa ay ka tiraado waa deedeel laakiin koob markaa aragtid dartay baranki oo ay ku samaysay xaajigeeda oo markaad adiga i daawanaya dhageysatid oo daawatid aad murugo dareemaysid anigan waa soo dareemay murugadaas ayaan soo arkay xaajigeeda oo maqan oo shaqo ku maqan ayay taleefanka ka wacaysaa waxa uu heshiinaya idii gabar kale oo leeyahay xaajiga rabaa maanta inaan ka qaraaxaysto ma ahana wax qaraaxa geli kara ma ahana waa wax nafta bini'aadanka shoog xataa mataqaan ku abuuri karta problem maskaxiyana ku abuuri karta waaye waxay leedahay xaajigeeda oo maqan taleefanka inta ka maqdo ay leedahay dhibaataa dhacday wuu naxayaa bal ereygaas fiirso dhibaataa dhacday xaajidaada marka ay ku dhacdo waxa aad dareemi karta waa dareemaysaa dhibaataa dhacday leedahay dhibaataa dhacday marka ay tiraahdo wuu naxaa maxay tahay leedahay dhibaatada dhacday guriga ma joogi dhakhtar baan jiraa
dhiig waan dhiig baxay leedahay xaajidaada uur kuu leh oo aad iyadoo caafimaad qabta kasoo tagtay waa dareemaysaa markii la yidhahdo uur baan kuu leeyahay markii xaajidaada ku tiraado ama dhakhtarku kuu xaqiijiyo inuu xaajidaada uur leedahay farxadda aad dareemaysid waa dareemi kartaa adiga waa dareemi kartaa aabbaa noqonaysaa waxaad u diyaar garoobaysaa sidaad canugaaga usoo dhaweyn lahayd waxay maskaxdaada sawiranaysaa sidaad canugaaga ula ciyaari lahayd aabbaa noqonaysaa wax sahlan marnaba ma ahan aabbihii sidaa lagu yiri ee farxaddaas haystay markii lagu yidhaha dhibaataa dhacda waa dhiig baxay micnaha canugaagii baa nolol iyo geeri u dhexeeya isagoo u dhalanin ama canugaagii baa dhicisiyey markii la yidhaahdo aabbahaas ilaah baan kugu dhaariya muxuu dareemi karaa aabbihii waxaa lagu leeyahay waxaa leedaha waa xanuunsaday waa dhacay musqushaan ku dhacay waan dhiig baxay isbitaalka baan aan jiraa malagiiso waxay dhahayso adigu bal ila dhegayso أنا دن واديك بحي وديك بحي آه سبحان الله محمد على المتعالي لك مخصوصا كدعي مخصوصا كدعي وكما تلقي جبتها استاك ناديك بلا يا جوبان زين ديك بحي سبحان الله وقدر الله ha waa dhegaysatay adigay daawanaya waa dhegaysatay waadna soo aragtay hore soo aragtay markaasaa laagaanta dhakab ku siisay hayaad kumanta qurux badan u qorto tiri waad guulaysatay waad samaysay shaqo wacan baad qabatay hore u soco baad tiri adeer bal ka waran marka ay dhegaysato hooyo kale oo soomaaliya ay daawato oo mataqaanaa aanan waxba ogeyn inay iska ciyaarayaan aanan ogeyn marka ay daawato oo ninkeedii ay ku samayso muxuu dareemi karaa markii adiga i daawanaya xaajiyadaada oo waxba kale ogeyn ay kugu samayso oo barnaamijkan iska daawato oo wax run u malaysay ay kugu samayso maxaa dareemay markii taas lagugula ciyaaro canugaagiibaa dhintay ama canugaagiibaa dhicisiyey ama canugaagia dhiig baxaayo marka lagugula ciyaaray adeer maxaa dareemi kartaa adeer aa aqli isku yeelno waad iga aqli badantihiin igana aqoon badantihiin igana karti badantihiin laakiin waxaa idin dilaya ayaa waxa ay tahay ka fiirsasho la-aan iyo dadka qaladka inaad ku taageertaan waa waxaa halkaana gaarsiiyey waa waxaa qurbahaa noo soo tahriibiyey dalkeenii naga soo cararsiiyey waa waxaan dadka uga duwanahnay waana sababta keliya xumaanta aan isku taageerayno maya waxay ahayd inaan dhahna ka joog abbaaya khalad weyn baad samaysay ninkaaga waa xaajigaaga inaad sidaa uga ciyaarto marnaba ma ahayn inaad dhacdo ayay ahayd laakiin maada dhihin waxaad tiri soc geli meeshay kula gasho waad dhiiri gelisay iyaduna inta ma fiirin intana ma fiirin horay u soconaysaa waxay samaynaysaa barnaamij midkaas mid ka halisan ayay samaynaysaa si ay u hesho commentigii iyo laagii iyo subscribe-kii aad shalay siiseen mid ka badan say u hesho waxay samaynaysaa kaas mid ka halisan oo ka soo jiidasho badan ayay samaynaysaa waxaa iyagana ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo janaal u furtaba xujooyinka halista ah waxaad arkaysaa canug baa waxa lagu leeyahay sunta dooligaa la siinayaa waa wax lagu ciyaarayo bal ka waran dhalinyarada xaafadda haddii iyagu laftirkooda ay ku ciyaaraan ka waran la yidhahdo ka waran koox dhan oo banooni haddii la yidhahdo kooxdii 2 gool laga dhaliyo sunta dooligaa la siinaa la yidhaahdo micnaheedu waxay tahay 10 wiil ama 6 wiil hal mar ha naga dhintaan waayo yaa sameeyey yaa waxaas u taray innagaa u tarnay innagaa u sameynay youtuberka annagoo ah baa u sameynay oo waddadaas dhimashada u dhignay wax fudud uga dhignay waa geeri youtubeka ama youtuberleyda kale caalamka fiirso maanta mobilkaaga hadduu kaa halaabo waxaad gelinaysaa sidee loo sameeyaa markuu binko kaaga xiro samsung noocaas magaciisaa gelinaya mobilka magaciisaa gelinaysaa wax walba youtubeka gelinaysaa wuu ku baraa stepkii kuu sameynaa laakiin ka waran inagu maxaan sameynaynaa sidee loo dhintaa waa inaan geliyaa marka youtubeka sunta dooliga cab uu leeyahay yaa ii sameeyey yaa i baray adiga i bartay sax adiga i bartay adiga inaa i bartana
yaa sababay anigaa sababay oo subscribe iyo like iyo comment iyo share anta suuqa qabtay aan ku dhahay waa wiil caana waa wiil qatara waa wiil bala ka dhacdaan ku dhahay xaajiyad baa ninkeeda ku tiri ilmaha ayaa dhicistay wax macquula sonkor inuu qabo wax macquula wadna xanuun wuu naxay wuu hingeed wadnaha gegir wuu dhintay yaa baray anigaa baray waxay ka fiirsatay youtube-kayga waxay ka baratay sidee nimanka loo dilaa naxdin loogu dilaa dhag sidee nin naxdin loogu dilaa haa barankiyaa ku samaynaysaa waxaa leedahay canugaagaa dhacay dig wadnaha qalaf aabba soomaali cunugiisa hore dhinta mana wuu naxayaa waay dadka way kala karti badan yihiin waa naxayaa wuu dhima karaa yaa sameeyey caadiga ay sameeyeen yaa igu qasb anaa sameeyey yaa igu taageera caadiga yaa dhimanaya caadiga yaa caana aniga waa intaas marka bal aan fiirino mid ka mid ah iyadana hablaha Soomaaliyeed oo xaajigeeda halkaas kuleetiga qabsanayso waxay oranaysaa waa in aad ifurtaa fiiriya waa in aad ifurtaa waxay ku dheelaysaa nolosheedii mustaqbalkeedii oo intaasoo geed ay usoo fadhiisatay waxay burburi rabtaa ama ay kala geey rabtaa aabbo iyo caruurtiisa waxay kala geey rabtaa laba naf oo isjecel ayay si dheedheela ku kala geey rabtaa iyadoo kama rabto inay ninkeeda uu furo laakiin way ku ciyaaraysaa marka waxay leedahay waa inaad ifurtaa marka xaajiyada inta ku qabsato inay tiraado ifur ood ogsoontaa in shalay labadiina isukaasta soo jeclaateen oo weer isku kiin qasbin ama nato iyo qaraabo kale aan ahayn laakiin laba nafaado isjeclaatay oo isguursata aad tahay waxa macquul ninka inuu arko yiraahdo maadaama qofkan shalay ku jeclaa hadee ku nacda iska fur inuu u furo waxa macquul ninka inuu nervosisan yahay uu mataqaana stress kala qabo uu sida ku furo sida nolosha ku babado haddaba iyadoo dhedheel bay ka wadaa camera meel u qarsan oo barangeeda ka sameynaysa ninkeeda ka sameynaysa ka waran markay xaaskaaga oo aanan social media bis ka soo aragto aqoon kale aysan u lahayn inay kugu ciyaartay dagto aad laba dalaaqo nab ku siiso soo maahan hooyo ilmaheed inaad kala fogeysay soo maahan aabe ilmahood inay kala fogaadeen soo maahan in nolol qurxoon oo socotay inay sidaa ku burburto oo dib loo laabto haddana fiiri waxaan ka hadlayna waxay tahay labadan qofood qaabka ay sameynayeen haba isku ogaadaan hadday rabaan laakiin adiga i daawanaya aniga daawanaya markaan daawano jilin waa sameynaynaa isku dayaan sameynaa xaajiyadeeda ila ogeyn haddaan sameeyo ama xaajiyadeeda adoo kula ogeyn hadday kugu sameyso adoo neerfoosan waa furaysa marka haddii aad rabtid sidee xaajigaaga iskaga furtaana youtube-ka gale islaantana kuu soo baxayso waxay kusoo bandhigaysaa sida nimanka la isaga furo that's all marka youtuberkeena ama youtube-keena waa mid laga barto sida nafta loo dilo sida mataqaanaa xaajinta la isaga furo sida mataqaanaa naxdin kurba la isugu beero war aawa farxadii war aawa aqoontii war dadkeena waxay u baahan yihiin waxyaabo kala fiirata ilmaha qurbaha joogo hadda aan gabadheeda curada marka ay guriga imaato waxa ay ka bilaabaysaa mobilkayga hore waxay ka furaysaa youtube-ka ay fiirsatana Soomaali maahan youtube ajnabi ilmo la ciyaarsiinayo ilmo la xanaaneynayo ilmo aabiyaanku jecel yahay ilmo hooyado jeceshahay ilmo wax qurxoon loo sameynayo ay 24 saac soo daawata ay kulada aabasaan waa rabaa anigana waa u sameeyaa anigana laakiin ka waran anugu la dilaayo hooyadiis dilayso markay fiirsato ka war waxay dareemaysaa shock intee lag anugtaas dareemaysaa marka waxaan ka hadlayo waxay taadeero dhibaatadaas iska ilaa bal ila daawada barato gabadhan xaajigeeda markay ku sameynayso waxaad ka dareemaysaa inuu saraali ka ahayn wuu ka argagaxa wuu ka murgoona wuxuu leeyahay macquul ma waxaan dad uma bandhigi karno ayuu leeyahay marka bal ila daawada hal mar hadda madaxayga miisiinaysa ama miisiinaysa maxaa madaxayga ma aha mashkaani waxaas waxa ka wada hadal jira ma kaas aniga adag ma wada hadal هذا كان مفهومي حقيقة والله بالله وطلع ورنتو أي طيب وحقيقة المركب أيات دعوتا أيات كومنتي لايك شير ضد كوسي ساتر وقف ماسو وقف عانا مركب بل أجو مركب هل بتجو مركب شرن جرادي لجو وديري لها أديك لجو فولي ورقف كان وحاله ولا الكعمر كو قردرين أنا قبو مركب لا قردرين أنا قبو
walaalay ama walaalo waxaan ma noo fiicnay naga day haddaad tiraahdo oo kaa diido haddaadan daawanin ka meeshiisu fashilmaa sababto waxaan wuxuu sameynaa waa adiga diin adiga daawan adiga laag hadhihin adiga horaha usoo hadhihin naftaada way kuu badbaaday nafteena waa noo badbaaday nafta caruurteennana way noo badbaadaysaa war annaka waxaan ku dheelaynaa midi afle oo sub aan ku dheelaynaa saas nala dhahooya marka adeeryaal markhaati TV wuxuu hadda jeer u taagan yahay waa saa idin sheegay toosh weyn inaad dadkaas camal ku ifino si adinka u fahantiin Soomaalidiina oo kala zoom weyn la u baahantiin si waxaad u aragtiin war waxaan faniyaa iska daawanin faniyo badan riwaayado badan dad sameeyaa jiro oo dhaqankeena wax ka bedelayo kuwaas adeeryaal taageer laakiin noocan camal hanagu dhisinin hanagu soo dhisinin adeer kuwan camal ay ugu soo dhisinin tali qaraabo ma nihin miya naftiina noo badbaadiye bilaa calayk tahay ugu soo dhisinin markaa aragtiin adeer saana dadeewaysid yaa weelo waa dareemi dheh waa badbaade adeer laakiin adeer diin la niki miska nikina adi dan ma kugu jirto may faa'iido ma kugu jirto may caafimaadka ma ku jiro may noloshaada ma ku jirto may mustaqbalkaaga ma ku jiro may adeer may علي ونص مالية ضحية بقول توني أفرتان أقانا كأقرص ما كبرا هذا واحد أسمى من ربي واحد تكسمه من ربي هذا واحد من ربي أنا عموما يجينا بابان يجينا تامربي نينك يجينا بابان كله تجنا من ربي مركات هذه أما نحاسك بابان إنه كله تجنا من ربي مركات هذا واحد ما لقوس سمينا لكن مركات ليخ هرقص مركات هذا واحد كبر أنا كينايا بدامي بين مشاكل برق بنان كيس الدقي هذا إنه أوجا جنبهم ما وحاس عملنا نب صوصيو وأنا صوصينا هذيك إداونا معقول إن هذا يقول تاجرين لكن أنا النفط هذه نفتي ذا أيام بتبادينا يا مالك كلا يا ليه تونتا بخاتي TV أما وريع عبد الرحمن محمد وحاويش شيء وحيان الله لا وحوى نكسن ما أهم قف كان إن إنسان التاجر ومركي هذيك كوساميسو لكن adduunku waxaa jirto ka hortag waxa la dhahayo ayaa jiro ka hortagaas haddii aad samaysid wixii ma ku soo gaarayaan laakiin qaladka mar haddaa ku dhacdo qoomama iyo dhibaato waxba kuma tarayso marka waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaan inkaga mahad celinayaa qaabka wacana ii daawateen intiina i dhiirigelisana waan inkaga mahad celinayaa inta kale oo aanay dhiirigelina oo u aragto inaan qalad ku taaganahana waxay dareemi doonaan biri marka ay naftooda halis gasho ama marka ay xalimadan ay qaladka ku taageerto ay qalad kaaska weyn ay dush u soo saarto markaas ay dareemi doontaa anigoo ah barqa banaankiisa degay waxaan idin leeyahay waqtigu ha idin wacnaado horumar ayaan idin rajeynayaa qof walba meesha uu joogo farxad iyo nabadgelyo rabbi ha ku siiyo السلام عليكم أفكو أمانتا وفضو داي أفكونا أمانتا تعالوا